السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلب wanaagsan meel kastoo aad joogtaan waa barnaamijkeennii labaad maanta waa talaado taariikhduna waa 25 November sanadka 2025 barnaamijkeenna waa kii labaad waxaan idinkugu soo gudbin oo isaguna sheegay dhawaan inuu qabanayo shir lacaga loogu aruurinayo dib u dhiska Gaza qaybta dambana Ukraine oo la sheegayo inay isdhiibtay ogolaatayna hindisihii madaxweyne Trump iyadoo loo qabtay markii horeba ilaa khamiista inay arrinka kaga soo joogo wanaagsan markale asxaabay meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeennii labaad maanta waa talaado waa barnaamijkii galabnimo haddaba ku soo dhawaada barnaamijka qodobka ugu horeeya warbaahinta waxay soo warinayaan in lafihii shalay la soo helay loo dhiibay Israa'iil ayna ku maqan yihiin qaybtii baaritaanka caafimaadka oo la soo baaray galabtana waxaa la helay lafa kale kuwii ugu dambeeyay fiidka ayaa loo wareejinayaa Israa'iil sidaas marka waxay ku haystaan 28 lafood lafihii dadkii meesha uga dhintay yahuudi la raadinayay oo xujada ay ka dhigeen awalna maxaa la siiyay 20 nool xisaabtu marka waxay leeyihiin nimankii Xamaas ahaa waa kala baxna nimankan inkastoo Israa'iil leeyahay nimankan waxba ay ka dhamaanayn waxay doonaan haddana laga warsugayaa wixii haddii ay dhahaan kuwan hadda la geeyo ma aha yahuud kale waa soo raadiya dad kale waa haday yiraahdaan taasa marka laga baqaya marka waa la sugayaa kullay sida ay u xaqiijiyaan iyo hay-adahooda caafimaadka waxay ka soo saaraan haddaba wararkii ugu dambeeyay aan idin tuso wakaaladda wararka Anadolu waxay leedahay hay-adda laanqayrta cas ee caalamiga ah ayaa lagu wareejiyay lafaha maxbuus Israa'iili ah oo laga soo helay Gaza laga soo helay haddaba warbixinta waa sii socotay waxay leedahay Tel Aviv waxay sheegtay in ay si rasmi ah uga wareegeen iyaguna hay-adda laanqayrta cas oo markaa ay u soo dhiibeen loona gudbayay dhanka iyo qaybta caafimaadka si loo xaqiijiyo lafuhu inay yahuudi yihiin iyo in kale haddaba sheekada kale oo cajiibka ah ee wakaaladda wararka Anadolu waxay leedahay waxaa laga doonayay inay dhiibaan 20 nool way dhiibeen waxaana sidoo kale la sheegay waxaa laga doonayay lafaha 28 kale waxayna hadda sheegeen inay kaamil yihiin cadadka lafihii ay hayeen sida ay si rasmi ah u sheegeen nimankan la yiraahdo al-Qassam iyo muqaawamada kale way 20 nool 28 wixii waa haystaan xisaab kale isugu imaanayna mar labadii ugu dambeysay marka hadda la geeyay hadii labada xisaabtu oo yahuud noqdaan khalaas waa kala baxnay taagay laakiin waxaan ku qoslay qaar kamid ah dadkii la wareysanayay oo Falastiiniyiinta Gaza joogay waxay leeyihiin warnimo kaasa naqaanay lafa kale oo hadda ka hor aan weynay xataa Gaza looga jiraahna loo soo saaray sheeko kale iyo meel aan loo joogin imaan doonaan laakiin taasaan ka yeeli doonaa heshiiska 28 ugu qornaa xisaabtuna waa wareejin annaga waa kala baxnay haddaba marka sheekadaas ayaa iyaduna halka ka taagan dhanka kale madaxweynaha waddanka Masar Abdi Fattah al-Sisi ayaa isaguna hadal jeediyay maanta oo kaga hadlayo in masaaridu ay dadaal badan ugu jirto sidii ay dalkeeda isugu keeni lahayd dawlado waaweyn oo ka qayb qaata dib u dhiska Gaza haddaba telefishinka Al Jazeera ayaa goordhow qoray warbixin wuxuu leeyahay madaxweyne Sisi wuxuu sheegay inuu martigelinayo waddankiisa shir caalami ah oo looga hadlayo arrinta dib u dhiska Gaza madaxweynaha Masar Abdi Fattah al-Sisi ayaa sheegay in Masar sii wadi doonto dadaal kasta oo ay ku bixin doonto sidii loo fulin lahaa loona meelmarin lahaa heshiiska xabad joojinta ee Gaza iyo in dagaalka halka laga joojiyo sidoo kalena inuu ka shaqeynayo maalmahan soo socda in la qabto shirweyne caalami ah oo Masar ay martigelinayso kaasoo looga tashan doono dib u dhiska Gaza dib u dhiskeeda looga arrinsan doono way marka dadaalkaas ku jirnaa leedahay
lacaga aruursanayna goorba masaaridan ma naxayaan way dalaalayaan hadday rabaan meeshaa nin walba adduunkiisu raacana mashaariicda dhismaha iyo waxa kan markii la keeno qandaraasyada iyo dhismaha iyo injineerada iyo shirkadaha dhisa iyo waxa dhan iyo masaariica laga rabaa meesha cid u danaynaysa keligeed ma jiro waa la kala danaysanayaa marka ninkan xusul duuba ku jiraa sidii uu dhaqaale ugu heli lahaa dib u dhiska gaza oo macnaha lacag loo aruurin lahaa gaza la dhisaa la dhihi lahaa marka hawshaasu marka halkaasay ka socotaa Zelensky oo isdhiibay ayaa la leeyahay ogolaaday qorshihii Trump qamiistii intaan la gaarin oo loogu hanjabay ilaa qamiista inuu ogolaado sheekada way noo soo socotaa laakiin maxaa ka soo kordhay nimankii xisbullah maxaa ka soo kordhay arrimahaas waxay booteeyeen hanjabaad midaan dhigno midaan samayno kan aan samayno Israa'iil u dhamaysa laakiin barnaamijkeygii hore saaki ku soo qaad war kuwan wax ma ka soo socda tir laakiin kuwa aan ka baqayno niman aamusan waaye tir hadda afkooda way haystaan waa aargudeynaa iyo waxaasaan ka xunnahay ma dhahayaan nimankaasaa ka baqaynaa inay nagu soo daataan waa nimanka Yemen jooga xootiga la yiraahdo haddaba marka ilaa hadda marka wax wara oo horta ka soo kordhay argoosi la yiraahdo oo Israa'iil lagu qaaday ma jiro ilaa intii aan kala maqnayn waa update gareynay waa la socday wax la soo qoray oo nimankii Israa'iiliinta wax u dhimay ma jiraan ilaa inta aan ka ahayn weli waa la aargudan doonaa aargudashadii socoto nimanka ninkii ku bedeli lahaa inay ka shirayaan Israa'iil heeganay ku jirtaa waxaas un baa la wadaa laakiin wax cusub oo soo kordhay ilaa hadda ma jiraan qadar xayisiisa kadib Ukraine oo gacmaha taagtaa la leeyahay waa ogaanay wanaagsan asxaabay meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijkeenii labaad maanta waa Talaado waa barnaamijkii galabnimo qaybihii ugu dambeeyay baraynaa haddaba qaybtan barnaamijka waxaynu ku soo qaadanaynaa nimankii Ukrainianka ahaa nafta haysaaleeyay Ruushkii waxba kama joojinayo maanta ugu dambeysay duqaymo iyo dagaal iyo waxba la isku qaaday xagga culaysa ka saaran Mareykankii wuu hanjabaya wuxuu leeyahay waa eedi doontaan hadda warkayga diidaan ninkii Trump ilaa khamiistaan idin qabtay inaad ajandaha heshiiska aan wado aad ku soo aqbashaan ajandaha maxaa ugu waaweyn dhulkooda inay ka tanaasulaan qaybo ka mid ah Yurub way qaylisay way diiday war waxaan hayeelinina nimankana dee nafta haysa cabsida Mareykankiina wuu u hanjabay Ruushkana halkaan uu nagta ka wadaa marka nimankii dambe waxaa leeyahay warnimayo annaga iska qaadanay dheh heshiiskan aqbal xoogaa yar aan ka doodno xoogaa macquul ah heshiiska waa aqbalnay marka hore dhaha kadibna dee wixii farsamo oo la bedeli karo iyo wixii gooni ah laga wada hadlo marka hadda warar soo baxay galabta aadituso waxaa leeyahay Al Jazeera waxay leedahay inkastoo dagaalo aad u qaraar ay socdaan haddana warar ayaa sheegaya in Ukraine ay waafaqday shuruudihii nabadda ee uu soo iyaga iyo Ruushka ee la soo bandhigay marka way aqbaleenaa leeyahay haddaba warbixintu sii socotay shabakada laga leeyahay waddanka Mareykanka la yiraahdo ABC News ayaa waxay soo xigatay mas'uul Mareykan wuxuu leeyahay Ukraine way aqbashay shuruudihii nabadda ee iyaga iyo Ruushka laga dhexwaday waxaana la sheegay in muddooyinkii ugu dambeeyay wada hadallo Mareykanka iyo Ukraine ay dhexmarayeen magaalada Geneva haddaba madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa maanta Talaadada telefoonka ku dhuftay ra'iisul wasaaraha Britain Keir Starmer wuxuu sheegay in Ukraine ay doonayso heshiiskaas inay iska qaadato iyadoo ka dhex aragta dhowr arrimood oo nabadaasu ay rajo gelinayaan dadka Ukrainianka ah ninkii Zelensky Ingiriis iyo dadkan Yurub oo soo wacay wuxuu yiri annaga waa iska qaadanayna heshiiska xoogaa yar waa kasii gorgortamayna dhulka inta la qaadanayo iyo inta kale iyo Ingiriis iyo nimankan Faransiis ha qaadanin ha yeelin ku hayeen maxay haysaan u yiri aniga nagtaa lagu hayaa Ruushkina waa garaacaya Mareykankii ay wax ka suweyno kaabaha ahaana waa ii hanjabay ninkii ilaa khamiista aqbaloyin hata maxaa sameynaa markaas wuxuu yiri waxaan ka dhex aragnaa heshiiska inuu danteena ku jirto ee saaxiibyaalow ogaada saas sheekadu marka ninkii Ukrainianka nimankii ahaa gacmay taageenaa leemaad
inkastoo la leeyahay Zelensky wuxuu aadi doonaa Washington xoogaa wuu kasii gorgortami doonaa ninka Trump marka hore waa inaad tiraahdaa waa aqbalay hindisaaga waa sida Xamaas oo kale Xamaas hubka dhigista iyo waxa kan iyo waa ogolaan Israa'iil in dawlad loo dhisayo nimankan hadhow la wada hadlayo waa ogolaan nin walba soo ma dhihin laakiin nin walba hawshiisa wataa إسرائيل دولة فلسطين والله أنا أقبلين تاعت حماس نبعتها والله هو كان إلى عدا فلسطين وديبين مركا شيء كذا أوجا ولا فهم أوجا مركورو كينا ولا وركي قال لي الوايل نال ليه هذا يوكرانيا ككارتدي وكلا وطني يوروبي وحكني والسلام ذا أوجا مركزوسا قميص أولي يدي بيها السقطرين هذا وحلو جينا يوكرين وأوجرات لكن حقات دودا قبلها قرار بحلها وأقرأني لكن وحير دودا قبلها دودا سوالة صحة وليه سك هرت ما أقرأتين هنتسي ساسكب هذا برنامج كي ولا جتا تعال بركة كل ما ينادي على إنه فكر يعرفتوا حيسنا صغر نود قليل